حسن خلق المعلم مع المتعلم معلم كقرآن كحنبارسن إدتك برية وإن دقن كيسي أخلاق ديسو أي وناك سناتو ولبك وحكبران أيو وحودك أيو دقن وناكسن وإنو كلا دقمه إيه أخلاق وناكسن إمام النووي وحوكود في التبيان صفحة لباتن إيه السقال وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها وحيد معلم كوحا مناسب ووهبون إنه كل رقمه أخلاقيات كوناكسن شرعي كسو أروري إنه كتوسناده أو كل رقموي ساسا وهبون أخلاقيات كوناكسن كو إلهي سبحانه وتعالى وكهنونيي إدتك ووت المامو وغيري oo ay kamid tahay adduunyada inuu isaga zaahido yaraysto oo muallim alquran waxba adduunka inaanu aad ugu tacalluqin waayo wuxuu haystaa wax walba ka qiimo badan ilaahina subhanahu wa ta'ala wixii uu qoray uu qaadaya laakiin tacalluq badan oo zaa'ida inaanu adduunyada ku samayn wa adamu almubalati biha wa bi ahliha iyo muallimka quraanku inaanu adduunyada iyo cidda ehelka oo haysataba midna inaanu daniya muraad ka gelin oo aanu aabayeelin waxa xaqiiqo ah muallim alquran haduu sidaa ku sifoobo inuu yeelanayo sharaf iyo karaamo laakiin haduu adduunyada ku tacalluqo oo ehelkeeda u daneeyo wuu duloobaya darajadiisuna hoos bay u dhacaysa wana xaqiiqo jirta maanta zamanka aynu noolahay yaani dadka qaarkood tacalluqa adduunyada iyo ehelkeeda ay ku sameeyaan qadarku isagu lahaa iyo qadarkii quraanka lagu yaqaanayba waxbay u dhimaysaa ruuxuna iyadoo ilaahay karaameeyay inuu is-ihaaneeyo meel xun isdhigo ma aha wixii alla ku qoray sharaf baad ku qaadanaysaa iyo wanaag laakiin quraanka aad xambaarsan tahay iyo naftaada hadulayna darajeeyo kor u qaad way hadad ihaana isbada adoo sabab isugu noqoto cidina ku karaameyn mayso ومن يهن الله فما له من مكرم لكن قرآن كهذا تعظيم سود وينيسو وهلكي كهبون أدقته أدقنا إلهي وكوينين يا أو كرفعنا يا جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل مرك أهل القرآن وين إلهي كقعب صودان قرآن كأي حنبار سيه نيدتك أدقيان أو أي حرميان أو أي قدريان والدنيا ذا يا أوساخ ذا أنا وحويان كحمين وأي كفوجيان adduunyadu taatiika wahiya raaqima adduunka adoonaysa isagoo dulaysan oo ku daba socdaad arki laakiin hadaf ka dhigan hadaad hadaf ka dhigato adaa u duloobaya waxaad xambaarsaneedna waa dulaynaysa laakiin markaad naftaada sharafto eed quraanka sharafto eed ogaato dadka adduunyada iyo maalka quruxda badan leh aduu inaad ka sareyso iyagoo dulaysan iyaga ku iman laakiin maanta waxaad ogtihiin macallimiin fara badan يعني يجيبا الدنيا ده يأهل كذا دبا صعدة مركز واحد أركيسا يعني في بعض الأحيان أما في بعض الأماكن قرآنك جوابها ولها أيوه هم تمرك الله شيء والشرف إيه كرامك لها مركز قفك يسقو طالب دون يو هلك تشوبتك ويماتو لكن مركز عادي دبا صعته تقولي وقتكته علمه يرى إيه والدك إيه ضمرك مدنا عنك حرمين اللي نقولي سعادي عدا وقتك يعني waxa weeyaan karaamadaad lahayd macallinimo iyo karaamadii quraan laha waxyaabo fara badan ba hoos u dhacaya waxyaabahaas oo dhanna waxyaabaha sababaya waxa weey tacalluqa adduunyada faraha badan leh laakiin waxaad ogaataa goobtaada aad joogtay quraan loogu tala galay qofku isagoo baahan haduu kuugu iman lahaa adaa sida doonto u xakameeyo oo u hogaaminaya adaa nidaamkaaga ku khasbaya waad ogtahayo qofka halkiisa marka loogu tago miya la maamuli kara gurigiisa baa wada ku tagtay ma maamuli kartid meheradiisi gurigiisi ma taxakumi kartid laakiin makaankii quraanku lahaa qofka kuugu yimaada horta uu ku baahan yahay aduu ma baahnid marka uu ku yimaado isagoo baahana dee asluubkii aadaabtu quraan lahaa baad marinaysaa marka waa tusaale laakiin waa misaal kamid ah amsilada tirada badan leh ee maanta yaani keenaysa macallinkii quraanka iyo wuxuu xambaarsanaaba halkii uu taagnaa inuu hoos uga soo yar dhaco ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما انت بدنا واحد مرخاتكتي
dadka qur'aanka lala daba socdaa meel ma gaadhaan yacni dadka madaarisul qur'aan ku lug leh way garan karaan ama maamul ha noqdo ama macallimiin ha noqdo dadka loo geenayo kolba meel loogu tegayaa ma taabagelayaan laakiin dadka iyagoo baahan goobtiisa iyo macallinkiisa iyo maamulkiisa u imanaya daba socdaa way hirgelayaan way hana qaadayaan waayo markay ugu yar tahay dee tartankii iyo tanaafuskii iyo qur'aanka intaasoo arday buu la tartamaya kanse wuxuu haystaa inaanay waxba ka maqnayn ila isagaa loo yimid walaalayaal xusnu lkhuluq maca almutacallim waa muhim nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam saaxibu lqur'aan aladi anzala allahu calayhi alqur'aan ilaahay wuxuu ku ammaano uu ku yidhi wa inaka lacalaa khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan iyo khuluq weyn oo wanaagsan khuluqaa lagu ammaanay mastarkiisu meel kale maahe waa min alqur'aan waayo caaisho markii la weydiiyey waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu qur'aankay ahayd min xusni lkhuluq dhaqan wanaagga waxaa ka mid ah alkalimatu ayiba hadalka wanaagsan waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi alkalimatu ayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqo ilaahayna waxau yihi waquluu linnaasi xusnaa dadka wanaag ku yidhaahdo kula hadla waxaa haddaba muhim ah macallimka qur'aanku hadalka uu ardayga u dhigayo kula hadlayaa inuu noqdo hadal hagaagsan waxaa laga yaabaa macallimiinta qaarkood hadal xun iyo hiif iyo huruuf iyo canaan iyo caybaa ka dhacsa mararka qaarkood arrinta noocaasihina ardaygiina raad bay ku leedahay oo ardaygii markaad hadal xun ku tidhaahdo way saamaynaysaa waalidkii raad bay ku leedahay waayo ardaygani waa xaashi cadoo wixii aad ku qortaa gurigu ka muuqanaya kelmadda uu macallinku yidhaahda ileen wax waluu macallinku yidhaha sax buu u haystaaye wuxuu odhanayaa hooye ama aabbo macallinkii sidanuu igu yidhi dee hadal xun haddaad ku soo tidhi waalidkii xanaaqsan baa kuu imanaya waanaynu aragnaa markaa macallinku soo may habboonayn marka horeba inuu ka fiirsado hadalka afkiisa ka soo baxaya ilan maaha mucallim oo keliya waa murabbi waa barbaariye ardaygan waa xaashi cado wixii aad maanta ku qorto unbaa ku qormaya idan hadalka kaa soo baxayeed kula hadlayso iyo ficilka uu kaa arkayo intaba hagaaji oo ha xumayn ilan waa darsi camali uu kaaga dayanayo marka dhaqan wanaaggii waxaa ka mid ah macallinku hadalkiisa inuu hagaajiyo oo uu ka ilaaliyo wixii deelqaafa ama dowdarro ah ama aan wanaagsanayn inuu afkiisa ka ilaaliyo waxaa ka mid ah min aadaabi almucallim alrifqu biaalibih aadaabta mucallimka waxaa ka mid ah inuu ardaygiisa u naxariisto u dabacsanaado raxmad u muujiyo mucallimku sidaynu hore usoo sheegnay waa xaamilu risaalati rasuuli sala allahu calayhi wasalam wuxuu xambaarsan yahay risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay oo dacwadii ah qur-aankii buu xambaarsan yihi sunnadii buu xambaarsan yihi nebiga dacwadiisuna dacwad naxariiseed bay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa wa yucطi cala arifqi ma laa yucطi cala alcunf wama laa yucطi cala siwaah wa fii lafdin ina arifqa laa yakunu fi shayin ila zaanah walaa yunzacu min shayin ila shaanah rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay kamaa fii muslim min xadiidi caaisha ilaahay inuu yahay mid rafiiqa oo naxariis badan oo dabac badan oo jecel waxa weeyaan dabacsanaanta iyo raxmadda ilaahay wuxuu ku bixiyaa raxmadda iyo dabacsanaanta waxaanu ku bixin cunfiga iyo culayska iyo kakanaanta iyo shiddada iyo adayga waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam rifqiga iyo dabacsanaanta iyo raxmaddu shay ma ahaato ilaa way qurxisaa shayna lagama siibo ilaa way fool xumaysaa haddaba mucallimku waa inuu noqdo rafiiqan biaalibih mid u dabacsan ardaygiisa lianna almucallima kaatabiibi lilmariid waayo mucallimku wuxuu ardayga u yahay sida dhakhtarku qofka buka u yahay dhakhtarku hadduu noqdo qof qallafsan oo culus oo cunfi iyo canaan badan dee qofkii xanuunsanaya waxba ka dheefi maayo o ka faa'iidi maayo waxaa la rabaa inaanu xanuunka ugu darin xanuun kale oo canaan iyo cunfi iyo culays ah sidoo kale ardayga dee cudurka hayaa waa jahli inaad ka saarto marka xanuunkuu kuula yimid ee jahliga ahaa
ee ahayd inaad uga saarto si dabacsan oo rifqi ah dee culays iyo cunfi waa inaad ku darin ee raxiim aad noqoto imaamu nawowi waxa uu ku yidhi fi tibyaan safxada 30 وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله وحول معلمك وحا مناسب إنه ودبر سناده ودبع سناده عد قرآنك كد الأخرية سيو وحويا كصحيو إيا إنه سود ويو إيا إنه أسم فلو روح والبسيد حال كيسا كوهبون إلا أضيقي باكو إيمانيا إسلامتي باكو إيمانيسا إنكي باكو إيمانيا إننتي باكو إيمانيسا caruur iyo ciroolaba waa lagu imanaya quraanka waa loo wada baahay marka ruux walba wixii ku munaasaba inaad kula muaamalooto ayaa muhiim ah wali ahamiyat الرفق في التعليم اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم للمعلمين كما في صحيح الجامع عن ابن عباس دبع سنانتا تعليمتا iyo wax dhigasho yaani dhigista la dhigaayo quraanka iyo diinta rifqi in wax lagu dhigo muhiimada ay leedahay darteed ayaa rasuulku kula dardaarmay cidda wax dhigaysa rifqiga iyo dabacsanaanta oo xadiidka saxiixul jaamica ku sugan Abdullah ibn Abbas warinayo rasuulku waxa uu sallallahu alayhi wa sallam allimu wa yassiru waxbara dadka dabciyo oo fududeeya oo ha cuslaynina ila quraanka laftiisi ayaa qofkii uu dhagax kaga dhigaya qofna uu dabcinaya waxa looga jeedaa taa quraanka marnaba la tasaahuli maayo xaqiisa waa la marinaya oo xuruuftiisa iyo xarakaadkiisa iyo xuquuqdiisa waxba lagu gabood fali maayo laga gaabin maayo laakiin de waxa kala duwan qof si qalafsan u saxaya iyo qof si dhibirsan oo dabacsan oo raxmad la u saxaya isagoo laxnigii aanu dhaafeen oo u saamaxayn ayuu hadana si sahlan u saxaya marka callimu wa yassiru waxbara fudaydiyan oo ha ku cuslaynina dadka ilin diinta hadii kale way ka didiyeen wala tu'assiru ha cuslaynina وبشروا ولا تنفروا وبشاريه ضدك الدين تهكددننا واذا غضب احدكم فليسكت متكين marka uu caroodana ha musaafki saahaysto waayo haduu caro ku hadlo waxa suurowdo waxaan haboonayn inuu ku hadlo waafkiisa uu ka soo baxo marka macallinka haduu caroodo afkaaga iska haysto hadii kale waxa laga yaabaa inaad meel ka dhac ku hadasho hadhowna de hooyo iyo aabe la gaarsiyo waa ceeb adigana fadeexad bay kugu tahay marka hadaad carooto طريقه ugu haboon afkaaga iska hayso kelmadiyay ka soo bixi gacan inaad qaadana hadalkeeda badaa waayo adoo caraysan hadaad gacan qaado de waxyeel la geysanaysa ilan garaacidu haday taadiib ahayd waxa laga yaabaa edbintii inay dhaafto oo de laf aad jabisa ama cad aad goyso wax yeesho marka adoo caraysan afkaaga iyo adinkaaga labadaba ilaali laana carada shaydaan ba kulamaan oo de uu ku talaabinayo waad xad gudbaysaa والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول القدوة الذي علم البشرية أجمع نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ومعلم كأني هري وهو قاميه إني هري نكدين إني اقتصاله يقدوة إنه أها وكي بشر كأوردن معلم الخير وأها يا خير كبري وقد ضرب في ذلك أروع الأمثلة رحمة يدبع سنانتا يرفق أنا رسولك tusaalayaasha ugu la yaab ka badnaa ayuu ku bixiyay oo waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay oo ninkii reebaadiyaha ahaa masaajidka nabiga kaadida ku qabtay yaani jahli iyo aqoon darro darteed saxaabadu markay kula boodeen wuxuu yiri dacuuhu la tuzrimuhu wardaaya ha ku goynina ha dhamaysto waa raxmad rasuulka sallallahu alayhi wasallam sifaadkiisa kamida markii uu dhamaystay ayuu yiri ariiqu ala bawlihi dalwa mimma warkaadidiisa waadaan biyaa uu ku shuba intaas tahaaro ah roogagan iyo de waxaan imay oo lin masaajidka nabiga de ciidaas oo iska aha ciidana halkii najaasa ku dhacday biyo ka badan hadii lagu shubo de intaas tahaaro ah ee shardi ma aha in la naqliyo la qodo de wax loo baahan yahay ma aha marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninkii ay saxaabadu ku dhawaadeen inay kula boodaan oo kaadida ku gooyaan wardaaya buu faraha ka qaada waayo haday kula boodi lahaayeen mafsadadan mafsada ka weyna way ka dhalan lahayd de diintana uu ka didi lahaa mafsadadu inta way ka balaadnaan lahaydo imika meel kaliya uu kaadida ku ayaa laakiin de masaajidka oo dhan intuu la dhaqaaqo ayaa najaasadu wada gaari lahayd markaasay najaasadu caam noqon lahayd halkay meel kaliya gaar kaga ahayd
diintana waxa laga yaabaa de inuu ka dido dib aanu ugu soo hiran oo aanu ugu soo hagaagin marka labadiiba waxa lagaga badbaaday iska daayada uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ولذلك في بعض الروايات waxa ku soo arooray ninkaasi inuu yiri اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا إلهي وانigi iyo محمد noo naxariiso ruux kale ha u naxariisan markaas rasuulku yiri laqad hajjarta wasi'a wax ilaahay ballaadiyay ayaad ciliididay de raxmadda ilaahay dadkoo dhan way deeqaysaa maxaad u ciliidaysaa way laakiin waxaan uga socdaa yaani raxmadii rasuulka sidoo aad iyo aadka ugu farxay ayaa ku kaliftay hadalkaas idan qofka muallimka quraanka dhigaya waa daaci waa tabiib waa dhakhtar qofka wuxuu dhigaya waa qof mariid oo bukoode jahli ku buka oo cudurka jaahilnimada inuu ka saaro la doonayo de si dabacsan oo raxmad leh waa inuu uga saaro markaas wuxuu ku yiri in hadii almasajid la yasluhu fiha shay'un min hada albawl wala alqadr wuxuu yiri warniyaho masaajidadan qurunkan iyo najaasadan kuma banaana waxa loogu talagalay salaad iyo tasbiix iyo adkaar iyo quraan saas uu ugu sheegay